مسؤوليين الصوماليات oo lagu eedeynayo in ay arintan geysteen ama xilha hadayaan ama yeesan haynina waxaan u maleynayaa doodii maanta ee qareenadeenu inay si cad u qeexeen ujeedadii iyo intentionkii laga lahaa waxa kaliya oo lagu eedeynayo waxa waaye inay heshiiskan is afgaradka ay saxiixeen anigu shakhsiyan asxiraali ahaan as mas'uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan cidna aan hubaysanin waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadlidii ay ka hadleen badda Soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinaya MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisa maanta la qeexay waad arkayseen qareenadu inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay bad Soomaaliyeed lagu bixinay ma ahayn in bad Soomaaliyeed lagu gadanay mana ahayn sida dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaar ah lagu galay ujeedadiisu waxay ahayd oo kaliya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda ee khusaysa continental shelf-ga ama qorsaf qaaradeedka labada wadan si ay u gudbistaan in aan wadanba wadanka kale uusan horistaag ku sameeynin ujeedadu saasay ahayd hadii Kenya waa laga rabay inay geeso Soomaaliya waa laga rabay inay geeso hadaan geyn weyno continental shelf-gana dhan sheegashadiisa meesha ka bixi lahayd Kenya hadii geyn weyso continental shelf-ga meesha ka bixi lahayd marka si ay u geystaan labada wadanba ay heshiiskan waxay u galeen in qolo walba ay raali ka tahay inay geysato warbixinteeda ma khusayninba haba yaraatee wax borderka iyo xadka aan ka heshiin iyo xadka badda Soomaaliyeed qaata intaas iyo sida aan ka dhigno iyo sida aan u xariiqno haba yaraatee ma aanay gelin kumana aanay jirin doodoodu tensionkooduna ma ahayn runtii dawladii ka caawinaysay labada wadanbana waxay ahayd dawladda Norway ayadana ma ahayn tensionkoodu noocaas iyo ma ahayn fikirkooda iyo ma ahayn waxay ahayd baclama ay ka caawinaysay labada wadanba in labada wadanba si khiyaara ay u geystaan oo ay u geystaan meeshaas ayay ahayd marka waxa kale oo inta ka soo hara waxa waaye wax anaga aanan ogeyn hadii qof calooshiisa wax kale ku jiray ama intention kale ku jiray ama wax kale u qarsoonayeen taas ilaahay un baa og laakiin waxa muuqda anaga aan hayna waa MOU-gan badna laguma bixinin badna laguma saxiixanin dood wuu keenay ficlan oo shalay oo dhan wixii dooda Kenya waxay ku saleysnayd MOU-ga si rabaan ha u fasirtaan laakiin haba yaraatee ma ahayn mid ujeedadiisu laga lahaa ay ahayd in bad Soomaaliyeed lagu bixiyo mana ahayn mid ujeedadiisa laga lahaa ay ahayd in xuduud